tusaa. kabii baan xidhay anigoo ina yara horta anigoo agoon baan ku soo koray hooyaday waxaa qabay adeerkay aabbahay la dhashay ayaa Mhm, caruur kale u dhashay mhm. 18 sano markaan jiray baan wiil isbaranay wiilka waan isjeclaanay runtii aad baan u xiiseynayay noloshiisa inaan ku soo biiro Haye, wiilkii jacayl kadib waan isguursanay haye. inankii markaan isguursanay markiiba 2 wiig kadib waxaan yeeshay uur ferestii beebigii ayaa caloosha galay Haye. inan yar baan ahaa 18 sano ma aan garanayn waxa igu soo siyaaday waxa iga yaraaday dulqaadkii waxaa nacay wiilkii guriga ila joogay jacaylkayga aan soo guursaday aroosadaanu ahaa Hmm. deedna inankii inuu ifuro un baan soo istaagay biduuni sabab iyadoona sababi jirin Ayaa. inankii inuu ifuro warqadayda ay siiyo Imse bilood baa lagu qabay marka? 2 toddobaad Acuudu billaahi min ashaydaani rajiim. Laba toddobaad baa meeshan laguna uuraystay laguna walaacay layskuna furooyaa. Haye. haa inankii wuxuu ii leeyahay walaalo haddaan ku soo guursaday kumaan xumayn maxaad iga tabanaysaa maxaan kugu furaa Mhm. aniguna waxaan taaganahay waxba igumaad samayn wiil fiican baa tahay walaalkay baa tahay si sharaf laad ii soo guursatay balse waxaan u baahanahay inaad ifurtid Haye, wallahi inaan weligay maqal. Weligii waxaa ma maqasheen. Laba wiigoo lasku furayo. Haye. xaafadii buu iga dacweeyey xaafadii wuxuu ku yidhi dee gabadhan anigu waan guursaday qarashna uu iga galay iyadoona bilna isqabin kala taga Mhm, anigu garan maayo gabadha la hadla mhm. xaafadii bidix midig dhinac kasta way iga soo mareen si kasta way iila soo hadleen waxaan ku adkaystay in ninkaa layga furo waanan doonay Mhm. waxaa laygu xereeyey boarding ama iskuulka dadka lagu xereeyo dadka lasoo dhaqan celiyo dadka qalqaaliga noqda iskuul lagu xereeyo aad laysugu soo ciqaabo ayaa laygu xereeyey Haye. anigu markaa ma ogi inaan uur leeyahay Mhm. xaafaduna ma oga xitaa qofkan aan haysta nolosha la wadaagayaa ma oga Mhm. meeshii dhibaato badan baa kala kulmay maalintii igu darneed waxay ahayd markii saa lay keenay dhowr casho kadib 3 nin inay isugu kay tageen oo ay aad ii jilciyeen deetana meeshii aan ku xanuunsado ilmihii halkii kaga soo daatay Innaa lilaahi wa innaa ilaihi raajicuun. Maxay kugu dirayeen marka? meesha waa meesha laysku dhaqan celiyo oo qofkii qofka qalqaaliga noqda iyo qofka xoogaa qurbaha ku yara halaaba iyoba iskuulka lagu xereeya marka dad u tababaran baa joogo qofka waxay rabaan inay khasab kaga dhigaan qof wanaagsan Hmm. 3 nin baa iskuulkay tegey xoog bay ii garaaceen meesha ciqaab aad u badan baa taalay ilmihii wuu iga soo daatay Mhm. markaan dee noqday qof dee aad u dhiig baxaysa dhakhtar baa laygu yeedhay dadkaygii baa laygu yeedhay deedna markaas waa ku baryay ogaadeen inaan anigu aanan waxaan iska keenkeenayne xanuunkan iyo ilmahan soo siyaaday awgiis aan u lahaa ninku hay furo Haye. markaa waxay ii weydiisteen cafis waanu khaldanay inaanu soo baadhnay ahayd inaanu xaaladaada caafimaad ogaanay ahayd laakiinse waa naga raali aho Mhm. marka aniga naftay haysa oo niyad ahaan waan u dhintay laakiin waxaan idhi raalli waan idinka ahay waxba idinma qabo ninkaygiina waan rabaa bilis meeshan uuna iga saara Mhm. meeshii baa layga soo saaray ilmihii uu iska soo dhammaaday gurigii ninkaygaan tegey markaa anigu kuma qanacsanin noloshiisa ninka anigoo xaaladaa ku jira ii qowday ina halkaa igu xereeyo dadkaygiina ii soo raacay fahmi waaye calaashaan marxaladaan marayay waxay igu noqotay wax adag inaan la sii noolaado Mhm. intii aan la joogay baan uur kala yeeshay waan xanuunsaday waan isa soo baadhay uurkii baa laygu soo sheegay toddobaadadii u horreysay weeyaan Markaad ku soo noqotay kale haddana. markaan ka soo noqday ee ilmihii hore soo dhammaaday ee gurigii ninkayga lay keenay Haddana uur kale markiiba. haa markiiba markaa anigu qalbiyan waan usoo dhintay markii hore jacayl aad xad dhaafan ku guursaday markii uurku igu dirayna waa kuwa sidan ila dhaqmay boodhinka igu xiray halka laygu soo ciqaabay
markaa xoogaa nacayb saayida ayaan u qaaday adigu waxaan waday wiilkii dhinacan ka mar warqadaydii bilihii u horeysayna waa nahay markaa noloshii baan cabiro waxaan is iri hadda hooyada gurigiina markii hore keligaa aad ahayd baabad xoogaa nolol yar adag ku jirtay hadeerna adigoo dhebela guriga hooyadaa kuma noqon karaysid ninkiina waad kala tagteen magaaladii oo dhan safar baan soo diyaarsaday dad baan soo raacay waan soo tahriibay suudaan baan imi suudaan markaan imi hatun bay adkaanaysaa wixii hore waxba may ahayn adkaati oo fogaati oo cuslaati weye ku soco markaan suudaan imi nin baa lay keenay mukhalasa deedna anigan uur yara ahoo anigan xanuunsanayo cuntooyinkii ma cunayo cunto keliya waxaan ka cunayaa xabxab ama qare hadba saad u taqaanaan fruutkaasun baan cunayaa wax kale cunto kale ma cunayo aad baan u tacabsanahay xaaladaydu iska yara bahalkaysan tahay inankii markaa lay keenay mukhalaska ahaa ama muharabka ahaa ayaa wuxuu iigu yidhi walaalo adigan aan waxba cunayno xanuunsanaye ma uur baad leedahay haa baan ku idhi markaasuu iigu yidhi kumaan soo kaxaysanayn haddaan moodaynin inaad uur leedahay annagu dad uur lena ma kaxayno laba mid soo kala gal inaan ku celiyo iyo inaad aan dhakhtarku geeyo qarashkan anigaa qaba ilmaha kaasoo tuuro inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun xaggee maraysaa marka suudaan weeyaan waa khartuum shakiir afdheer deetana waxaa dhacday inuu yiri labadaa mid soo kala gal way ilo noqon weyday ilmahaygii waxaan ku yidhi walaalo ilmahaygani maaha ilmahan xaaraan kusoo qaaday xalaal baan ku dhalay mana soo tuurayo ilmahayga hadday sidaa ay tahay waan kaa tegaya may tegi maysid biigu yiri go-aan soo gaadh oo qarash baa igaga kaa soo baxay ilaa iyo wadankii baan ku soo waday aayar baan iska tegaya maaha labadaa midkood go-aan ku soo gaadh taleefon baan dirsaday isagii baan la hadlay waxaan ku yidhi walaal dhegeyso ilmahaygii hawshaasaa igu soo korodhay ninkaasi saasuu ii leeyahay magaalada ma kala aqaano acuudu billaahi min ashaytaan rajiim magaalada ma kala aqaano walaal waxaad samaysaa lacagtii iga soo bixiya intaas aan ninkan iskaga tage si aan ilmahayga u badbaadsado yaad ku leedahay markaa ninkaagiiba kii aan soo kala tagnay ilmaha dhalay wuxuu igu yidhi ninka magaciisa sheeg ninka magaciisii baan sheegay wuxuu soo diray markaa inama jaamacad dhigan jiray oo meesha ka dhigan jiray oo faamilkiisa ahaa ayuu soo diray gabadhii ninba halkaa ku haystay u tagoo ka soo kaxeeya oo bilaa lacage inamadii de meesha soomaalidu waa in isgaranayse ninkii warkii baa soo gaadhay in col ku soo socdo oo duulaan lagu soo yahay dabeedna uu i weydiiyey wuxuu igu yidhi macid baad la hadashay ahaa baan ku uri dadkaygii baan la hadlay oo no waan iskala kaa kaftamaya waxaasi kaftan bayaad kaftankii baad run mooday waan ku dirayaa ilmahaagana waad wadanaysaa ina keen gurigii buu iga kaxeeyey guri kale uu igeeyey sidii baan kusoo wadada kusoo maray waxaan imi libiya markaan imi hooyaday waxba ma haysato agoon baan ahay aabahay uu dhintay ninkii markii lagu yiri gabadhii de halkaasii ku jirtaa waana gabadh lamaan oo ilmay kuu wadaa waxaad samaysaa in wax isugu dardarno aniga iimay tegin buu yiri waxba igama gelin iyada waxay uurka ku sidatoona hooyaday way daalaa dhacday deynay doonatay meel kasta way soo martay waxay soo iibin karaysay way soo iibisay adugu lacagtii muddo kadib way ii soo dirtay meesha waan ku rafaaday waan ku silcay inan baan ku dhalay uurkaygu bil buu ahaa markaan soo tahriibay
gabadh baan ku dhalay weliba marxalad aad u adag ayaan ku dhalay bilaa dhakhtar bilaa qalab waxay gaadhay ilmaha yar marka xudunta laga jarayo dunta raashinka laga furo in xudunta inta saa loogu kala jiiday saa loogu jaray xitaa qalab xudunta lagu jaro maqas ulaa mindi aanay waxba oolin ninkan hayste nin soomaaliya buu ahaa laakiin meesha aanu ku jirnay markaa dagaal baa ka socday oo uuba diri lahaa uu noo soo iibin lahaaye meesha markaa waxaa ka socday dagaal lama bixi kare inaa lilaahi wa inaa raajicuun dumarka dhalay baa ku dareemaya ku soco anagoo iska waan sawiranaynaa anigu kow ka ahay aad iyo aad wallahi waa xanuun wallah marxalad aad u adag baan markaa ilmihii ku dhalay oo runtii aan halkan laga wada sheegi karin bilaa dhakhtar qof aan farsamada garanayn anigu aan ilmihii iska dhaliyey inan yar aan ahaa ugu baan ahaa ilmihii u horreeyey uu ahaa 18 sanaa ninka ku guursaday 19 sanaa jira sanadka ilmahaasi caloosha uu ku jiray kii hore soo daadanaya ku biiray marxalad aad u adag oo aan odhan karaynin waa wax iska caadiya ayaan ku dhalay inan yar baan dhalay ilaahay igu irsaaqay ilaahay uu ii badbaadiyey waxba igumuu yeelin inantii yarayd marka aan 40 kula jiro ayaanu safar u soo baxnay meeshii baanu ka soo baxnay gaadhi baanu soo raacnay waxaan u soo soconnaa markaa caasimadda liibiya waanu rabnaa markaa inaanu doontii halkaa ka korno imse ashi jirta ilmaha yar 40 kamay bixin weli hey subxaan allah markaa intaan xerada ku jiray markaan dhalay xoogaa yar xafaayada lay keenay iyo caano yar iyo wax yar xafaayadaasaan markaa u yaryarayn jiray xafaayadii way ka dhammaatay xafaayadu ma sido caano uma sido caanihi way ka dhammaadeen reerka iyagu lacagtii doontayga saxaaraha iyo waxay iga soo bixiyeen dee shilinba meel laga keenay cidi biil iimay soo dirayn makaroonada qalalana halkaa lagu kariyaan dadkaa la cuni jiray inantaa yari waxay aniga iga hesho ayay ku noolayd waxaan u soo baxnay safarkii baan u soo baxnay wallahi waa xanuun wallah ya soomaalida wallahi waa dhibaato badan haysta wallah safarkii baan u soo baxnay cunta ma jirto biyo ma jirto meeshaanu maraynaa waa qorax cadceedu dhakadaadaysaa u dhalaalinaysa dhowr cashaanu kusoo jirnay jidka inantii yareed markaa gaajadii iyo qoraxdii baa isugu darsantay biyo uma sido caano uma sido xafaayad uma sido calooshu way socotaa inanta yar maradaydii markaa shalmadaydii aan huwanaa ayaan marba intaan dhinac ku qabto markay dhinacaa ku shubantaba intaan jaro ayaan tuuraya markaasaan dhinaca kale ku qabanaya sharaab yar baanu siinaynaa ay gabadh wadatay sharaabkiioo sidiisiiya ayay dabada kasii daynaysaa 40 cashay jirta 3 casho markaanu meeshii ku jirnay oy 3dii cashaba sidii u shubmayso ay ugu tiri gabadh markaa meesha saarnayd bilaadanka dadka way kala naxariis badan yihiin dadka qaar baad ka odhanaysaa xididkii naxariista waa laga siibay gabadh baa markaa waxay igu tiri gaadhiga saarnayd ilmahan yar ilmo noolaanaya maaha iska tuur waad ku silacay sida marba dharkaaga ku xaaraya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun tuur ah haa hadallada aan ilaa iminka ilaabin ayay ka mid tahay waa gabadh soomaaliyeed oo laga yaabo inay wax soo dhashay qof lagu leeyahay qofkiisii tuur taa mid kalaa kasii darnayd markaa haddun bay adkaatay tii hore waxba may ahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wallahi waxaan wallah hay ilmaha yaraa yar loo leeyahay tuur ka waran ku soco Faadimo markaanu muddo soo soconay oo ilmo yaraa sidii u qaylinayso oo sharaabka yar marka la siiyo sharaabkiiyo sidiisii ay dabada ka dhigayso
oo aan marba maradayda go-ayga shalmada aan huwanahay marba aan inuga jeexayo oon isla tacabsanahay ayaa waxa dhacday ninkii baa soo degay wuxuu yidhi waxaan maraynaa meel boolis u dhow yahay ayaan maraynaa iga aamusii gabadhaya yay hadle hadday mar dambe hadasho tuunbuu ila dhacayaa marka intaasaa ay leeyahay mar dambe hadday hadasho waan kaa tuuraya ilmo yaroo xanuunsanaysaan aamusin karaa saan odhan karaa afkeedu miyaan qaban karaya midda kale qayladeedu maaha ilmo dee xoog u qaylinaya wax 40 casho oo mulan cabaar markaan soconay buu gaadhigii joojiyey tuun buu ila dhacay ilmihii waxaan leeyahay markaa anigu tuunbadanuu ila dhacaya iima muuqato waan qayrinayaa markaa waxaan leeyahay waan istuurayaa oo ilmahaygii kaga tegay dadku waxay leeyihiin shaydaanka iska naar ha istuurin fadhi marka dad waxaan moodaya inuu tuuray meeshiisaan u qaylinayay gaadhiga u garaacayay wan xoogaa socono gaadhigu xoog buu soconaya marka waxa iga go'an inaan gaadhiga iska tuuro meesha ay ku dhimanaysaan kula dhinto sheekada waa xanuun wey ma joojina waxa fiican qofkii daawan karayo bes ha daawado sababtoo ah qofkii u adkay garabaan laakiin hooyooyinka uur